qorshaha istiraatiijiyadda ciidanka qalabka sida ay ciidanka AMISOM wala wareegayaan difaaca iyo ammaanka guud ahaan dalka ayaa lagu soo bandhigay shirkan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa shir gudoomiye kulanka oo ay ka qayb galeen wasiirro ka tirsan xukuumadda, guddiga difaaca ee golaha shacabka, xubno ka socday dowlad goboleedka ka jira dalka, beesha caalamka iyo dowladaha ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya. qorshahan oo ay soo diyaarisay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay isla markaana ballan qaaday inay taageerayaan sidii u dhaqan gali lahaa beesha caalamka. iyagoo si weyn u soo dhaweeyay qorshahan oo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre sheegay in dowladda Soomaaliya ka go'an tahay dhaqangelintiisa si ciidankeenu ay la wareegaan ammaanka guud ahaan dalkeena. wasiirka difaaca ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo warbaahinta qaranka la hadlayeen wax ka weydiiyay ahmiyadda wax xambaarsan yahay qorshahan ay soo diyaarisay dowladda Soomaaliya. shirkan waxaa looga hadlayay marxaladda kala guurka ama transitionka ayaa looga hadlayay muddo bil ku dhow waxaa la diyaarinayay transition plankii yani marxaladii ay xilka kula wareegi lahaayeen ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. marka maanta transitionkaas ayaa laga hadlayay, waa markii ugu horeysay oo qorshe annaga aan leenahay la soo diyaariyo. shirka waxaa ka soo qayb galay guud ahaan international community-ga iyo dowladaha halkan ciidanka uu ka joogo dhammaantood way ka soo qayb galeen. marka maanta waxaa la ogolaanaya ama la ansixinayay transition planka oo annaga aan lead garaynayn ama annaga aan soo diyaarinay. marka intaas ku saabsan amaan qorshaha marka waxaa soo diyaariseen balaansixin waa la ogolaaday transitionka. dhammaan dadkii ka soo qayb galay waxay u arkeen inay muhiim tahay wax ay Soomaali leedahay halkan la keeno oo aan hogaamino. marka waa la isla ogolaaday. wixii kaloo dhamaystir u baahanna in la dhamaystiro oo ka maqan waxaa bilaaban doona marka maanta core group meeting oo ahaa dadkii soo diyaariyay transitionka oo isugu jiray dowladda federaalka iyo ay ku jiraan isteedida dad mesela oo ay ku jiraan qaar international community ka socda. dhammaantood halkan ay joogaan. marka wixii hadda ka dambeeya waxaa loo gudbi doonaa farsama loo gudbi doonaa. qorshahaas ma mid ku meel gaar ah mise waa qorshe rasmi ah? horta qorshe kastoo la sameeyo waa la sii horumariyaa, laakiin waa qorshe rasmi ah dowladda Soomaaliya iska leedahay. aan rabno inaan kala wareegno AMISOM xilka oo dhinaca amniga aan la wareegno ka dowlad ahaan annaga inaan isku filnaano oo security ama amniga aan la wareegno. marka waa qorshe muhiim ah oo loogu talagalay qaranka in lagu badbaadiyo. qorshahaas ma qeexaya waqti ama timeline leeyahay? sax, qorshaha waqti uu leeyahay, timeline uu leeyahay. qorshe kastoo la diyaariyay waa sharti inuu timeline u lahaado, uu leeyahay waqtiyo cayiman uu leeyahay, sida loo kala fulin lahaana way caddahay. goorta la qorsheeyay ama soo baxayaan xilliga la qorsheeyay hadda waxaa laga hadlayaa un transitionkii bixitaan laga hadli maayo. waxaa laga hadlayaa kaliya qorshihii ay ku bixi lahaayeen ayaa la diyaarinaya. marka qorshahan ayaa wuxuu dhihi doonaa xilligaas ay baxayaan, meel hebla ay ka baxayaan. hadda waa istiraatiijiyadii kaliya ayaa la diyaarinaya. marka istiraatiijiyada ayaa exitka uu ka soo bixi doonaa. dowladda Soomaaliya ayaa xoogga saaraysa dhismaha iyo qalabaynta ciidanka qalabka sida si ay u hantaan difaaca iyo ammaanka Soomaaliya marka ay dalka ka baxaan ciidamada AMISOM oo hadda ciidamadeena caawiya. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.